barnaamijkeena waxaynu ku eegaynaa wixii ay ku dambeeyeen khubaradii u dhalatay dalka Mareykanka ee isku dayay inay sawiraan cadaabul qabriga ay muslimiintu aaminsan yihiin kuwaasoo diyaariyay qorshihii kuna xijiyay fulintiisii laakiin waxay ay la kulmeen waxa uu noqday waxa ay ku cibro qaataan aadamaha intiisa kale khubaradan dhanka baaritaanada oo tiradoodu ahayd 4 ayaa ilaalo ka hayay oo la socday aas loo sameeyay qof muslimiinta ka mid ah oo magaaladooda ku geeriyooday kadibna waxay ka qayb galeen aaskii markii laga dareeray munaasabadii aaska ayay dib ugu soo noqdeen halkii xabaashu ahayd waxaana ay dib u soo faageen xabaashii qofkii muslimka ahaa iyagoo ilkii xabaasha ku rakibay kamarada fiidiyo oo gudcurka madow wax ka sawiri kara isku day ay ku doonayeen inay ku helaan waxa uu qofkaasi la kulmo laakiin wixii ay la kulmeen waxa uu ku noqday fajiciso iyo la yaab wixii xilligaa ka dambeeyeen saameyn ku yeeshay noloshoodii maalintii labaad ayay dib ugu laabteen halkii xabaashu ahayd laakiin waxay la kulmeen oo heleen iyadoo dhammaan kamaradahoodii ay gubteen oo ay sidii caag dab lagu riday isku dhalaaleen xilli haba yaraatee aanay waxba gaadhin meydkii ay kamaradaha agdhigeen muuqaalkaa ka bacdina waxaa si degdega iyagoo aan isa sugin ay ka carareen meeshii xabaashu ku taallay inkastoo masiirkii dambe ay la kulmeen oo ahaa mid kala duwan iyadoo laba ka mid a maalintii xigtay ay islaameen mid kalena la helay isagoo isku deldelay qolkiisii hurdada kii afraadna ay maskaxda wax uga dhinmeen waana qiso ay daabacday oo baahisay jariirada New York Times ee dalka Mareykanku